fariikama qodna cajaa'ibta ku geedaaman koobka adduunka ee sanadkan carabtu waxay badhadan hor le u yeeleen xamaasadda koobka adduunka ee 4 sano mar la qabto. maxaad ka ogtahay saamaynta Pakistan ee koobka adduunka? maxaa ka caawiya xulka Sacuudigu in afka cidda ugu daro xulka Argentina? dhinacyo badan ayaan ka eegi doonaa. warka ugu murugada badan ee koobka adduunka ee sanadkan waa sidee masiirka Messi iyo Ronaldo ee koobka adduunka ee sanadka 2026. muuqaalkan ayaan ku faaqidi doonaa xogahaas iyo kuwa kale oo muhiim ah, balse ugu horreyn fadlan muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada oo noo soo raac si aad u hesho xogaha maalinlaha ah ee koobka adduunka. sida laga wada dareemay guud ahaan caalamka, koobka adduunka ee sanadkan ayaa leh xamaasad ka xoog badan tii ay koobabkii hore lahaayeen, hadday ahaan lahayd dadka tiifiyada ka daawanaya ama kuwa garoomada xaadirka ku ah sida tooska u daawanaya. lambar 1, ciyaartii shalay xulka Sacuudiga oo loo tixgelinayay inuu yahay xulka ugu liita xulalka ka qaybgalaya koobka adduunka ee sanadkan marka laga reebo xulka Ghana ayaa wacdar ka muujiyay garoonka. xulka Sacuudi Carabiya ayaa xidhay mid ka mid ah rikoodhadii ugu cajaa'ib badnaa ee koob adduun kadib markii Alabi hal kaga badiyeen xulka Argentina ee hogaaminaya xidiga dalkaas Lionel Messi. guuldaradan lama filaanka ah ayaana Messi soo xasuusisay ciyaartii koobka adduunka ee sanadka 1990 waqtiga oo xulka Cameroon ay 1-0 kaga adkaadeen xulka Argentina furitaankii ciyaartii koobka adduunka ee sanadka. inkastoo Messi uu rikoodho loo dhigay dheliyay daqiiqadii 10aad ee ciyaarta, haddana labada gool ee ay kala dhaliyeen xidigaha xulka Sacuudiga ee Salah Al-Shehri iyo Salim Al-Dawsari qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa horseeda inay ka guuleystaan xulka Argentina. guushan lama filaanka ah ee xulka Sacuudiga ay soo hooyeen ayaase shaki gelisay taageerayaasha ciyaarta daawaday iyo xitaa xulka Argentina, maadaama lala haleelay nabar lama filaan ah. waxaana baraha bulshada qabsaday ciyaartooyga Sacuudiga oo sujuudsan halka kuwii Argentina ay madaxa murugo la foorarinayeen. waxaana sawirkan hadda aad arkaysaan aan u tixgelin karnaa mid ka mid ah sawiradii ugu saamaynta cuslaa ee koob adduun. guushan ay soo hooyeen xulka Sacuudiga ayaana horseeda in taageerayaasha dalka ay garoomada fadhiya ay farxad isla ogsadeen. dowladda Sacuudiga oo arrinka ka dab qaadaysa ayaana maanta oo Arbaca u aastaysay maalin fasax ah. hase yeeshee ciyaaryahanka Messi ee reer Argentina ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Argentina ee gool ka dhaliyay 4 koob adduun 2006, 2014, 2018 iyo 2022. waxaase isweydiin mudan in xulka Argentina ay ku hanweynaan qaaditaanka koobka adduunka ee sanadkan uu kasoo kaban doono guuldaradan iyo in kale. dhanka kale waxaan ina caddayn in xulka Sacuudiga uu kulamada u dhiman badin doono iyo in kale. waxaase jirta in sanadihii u dambeeyay xulkan Carbeed uu dowladda Sacuudiga ka helay taageero dheeraad ah. waxaa intaa u dheer in Renald uu yahay macalinka xulka Sacuudiga ilaa sanadkii 2019. Renald waxa uu caan ku yahay in labada wadan ee Zambia iyo Ivory Coast ay qaadeen koobka qaramada Afrika waqtiguu macalinka u ahaa. lambar 2, saamaynta Pakistan ee koobka adduunka. inkastoo xulka Pakistan uusan ciyaarin koobka adduunka, haddana waxay dowladda Pakistan qabsoomidda koobka adduunka uga qayb qaadanaysaa laba waxyaabood oo muhiima. tan koobaad, Pakistan ayaa mas-uul ka ah soo saaridda qiyaas ahaan 3 meelood meel tirada guud ee kubadaha loo yaqaano al-rixla, taasoo loo isticmaali doono ciyaaraha koobka adduunka. Forward Sports oo ah shirkad ku taala dalka Pakistan ayaana samaynaysa kubadahan. tan labaad, sida aan kasoo xignay DW, dowladda Pakistan ayaa 4500 oo ciidan lug ah u dirtay Dooxa bishii Oktoobar ee sanadkan si ay u ilaaliyaan koobka adduunka. sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan ciidamada Pakistanna, ciidanku waxa uu ku yimid codsi gaar ah oo ka yimid dowladda Qatar, waxaana tirada ciidamadan dalbaday mas'uuliyiinta Qatar maadaama ay labadan wadan leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo aad u wanaagsan. lambar 3, dalka Qatar waxaa hadheeyay murano badan oo ku saabsan koobka adduunka ee sanadkan 2022 kuwaasoo ay reer galbeedku cadaadis dheeraada ku saarayaan dalkan. ugu horreyn waxay aad u falanqaynayaan xogo horle oo kasoo baxaya dalkan kuwaasoo sheegaya in ku dhowaad 6500 oo shaqaale ajaanib ah oo u kala dhashay dalalka Pakistan, Hindiya, Nepal, Bangladesh iyo Sri Lanka ay naftooda ku waayeen howlgalladii lagu dhisayay kaabayaasha dhaqaalaha ee Qatar, kuwaasoo loogu diyaar garoobayay martigelinta koobka adduunka. intaa waxaa dheer reer galbeedka oo aan ka quusanin inay dariiq u helaan muujinta dhaqdhaqaaqyada dadka lagaronayaasha ah. si kale haddaan u dhignana dadka ficilada qowmuluudnimada ah ku kaca kuna faana. lambar 4, koobka adduunka ee ugu dambeeyay ee ay ciyaareen Messi iyo Ronaldo. warka ugu murugada badan ee dhammaan taageerayaasha kubadda cagta ee caalamka ayaa ah in koobka adduunka ee sanadkan ay u badan tahay inuu noqon doono tartankii ugu dambeeyay ee koob adduun oo ay wada ciyaaraan haliyada kubadda cagtu, waxaana lagu xasuusan doonaa inay yihiin ciyaartooygii ugu wanaagsanaa ee taageerayaasha kubadda cagtu ay in badan ku murmeen midka wanaagsan. Messi isaga ayaaba afkiisa ka qartay jawaabta su'aasha kore. waraysi uu siiyey Star Plus bishii Oktoobar ee sanadkan ayuu ku yidhi, waa xaqiiqani waa koobkii adduun ee ugu dambeeyay ee aan ciyaarayo. koobka dambe Messi waa 39 jir halka Ronaldo uu ka noqon doono 41 jir. hase yeeshee Ronaldo ayaa ka gaabsaday inuu si toos ah su'aasha kore uga jawaabo. waxayse u muuqataa inuu weli leeyahay hami sare oo ah inuu ciyaaraha sii ciyaaro, isagoo waraysi uu bixiyey bishii Sebtembarna ku yidhi, waxaan rajaynayaa inaan qayb ka sii ahaado federeeshinka kubadda cagta ee Boortaqiiska muddo sannado ah. isku soo wada duuboo Ronaldo da'diisa ayaan u saamixi doonin inuu ciyaaro. lambar 5, xulka Ruushka sanadkan ma ciyaarayaan. inkastoo Ruushka uu ahaa dalkii martigeliyay ciyaarihii koobka adduunka ee sanadka 2018, haddana xulka kubadda cagta ee Ruushku kama mid aha xulalka qaramada matalaya ee dheelaya koobka adduunka ee sanadkan. arrintan ayaa timid kadib markii FIFA ay ka mamnuucday inay ka qayb qaataan koobka adduunka iyagoo u cuskanaya duulaankii uu dalkaasi ku soo qaaday Ukraine sanadkii tegay. isku soo wada duub
hubo waxaa 8 garoon ee dalkan Qatar guud ahaan ka dhici doona 65 kulan oo isku arki doonaan 32 xul waxaana isha lagu wada hayaa saadaasha mar walba isbedeli karta ee xulka ku guuleysan doona koobka adduunka ee sanadkan ugu dambeyntii fadlan ha naga ilaawin inaad muuqaalkan like saarto sidoo kale aad la wadaagto asxaabtaada naguna soo biir si aan u helno asxaab badan oo adiga oo kale ah